kusoo dhawaada Somali Jobs mareegta soo bandhigta fursadaha shaqo iyo fursadaha kale ee u bannaan Soomaalida. Somali Jobs waxay isku xidhaa shaqo raadiyaha iyo shaqaaleeyaha hadday noqoto hay'adaha caalamiga iyo kuwa kale localka ah iyadoo marka aanay cidi u dhaxayn. Job seekersku way isdiiwaan gelinayaan CV-goodana way ku post garayaan, way soo geliyaan mareegta. Employerskuna shaqooyinka ay soo xayeysiiyaan isla markaana CV-yada job seekerska ayay daalacdaan markaas ay la xiriiraan hadba potential job seekerka. haddaba haddii ay doonayaan employersku ama hay'adaha caalamiga ahi ama kuwa guduhuba in ay shaqo soo geliyaan mareegta waxay samaysanayaan username iyo password. dabadeed userkooda ayay gelinayaan halka employer menu-ga. userka marka ay geliyaan waxay odhanayaan login. shaqada aad gelinayso website-ku had iyo jeer waa in iyadoo weedha ay ku qoran tahay oo si fiican oo qurux badan ah. mareegtii marka ay ku soo baxdo aad gelisay userka iyo password-kaaga waxa ku soo baxaya employer menu u gaara employerka. waxaad arkaysaa ARC oo aynu userkeedii isticmaalayno shaqooyinka ay soo xayeysiisay dadka ay u soo gelisay mareegta. si haddaba shaqo cusub aad u soo boos garayso waxaad dooranaysaa post new job. dabadeed waxaad soo qaadanaysaa title-kii shaqadaydii oo kan title-keedu yahay. had iyo jeer waxaad raacinaysaa location-ka shaqadu ay tahay. waxaana lagu talinayaa in had iyo jeer title-ku uu noqdo mid xarfaha hore oo keliya ay yihiin capital. title-ka soo koobiyey mareegtii noo geli halkii job title-ka. shaqadani ma internship ama full time ama part time dooro nooc ay tahay. location-ka halkee ayaa shaqadan laga shaqeynaya waan ku dhufanaya. magaalada aad doonayso saddex xaraf ee horeeya qor. systemka ayaa kuu soo helaya magaaladii. dabadeed dooro shaqadani maadaamay fascination iyo la xidhiidha waxyaabo noocaasa talaal waxaan halkaa ka dooranaya category-ga caafimaadka. sidee baan u dooranaya waxaan qorayaa saddex xaraf ee horeeya caafimaadka. dabadeed wuxuu isiinayaa category pharmaceutical medical healthcare mid unbuu noqonaya. dabadeed dooro halkaa waxaad ka dooran kartaa as many categories shaqadaasi ay sii hoosgelayso. description-ka waxaad gelinaysaa faahfaahinta shaqadii adigoo had iyo jeer faahfaahinta ka bilaabaya meel 3 line ah ilaa 3 line qoraal ah saa u koobiyey. dabadeed ku noqo halkii description-kii right click samee waxaad soo dhigtaa qoraalkii position-ku lahaa. shaqadu sida muuqata waxay dhacaysaa 29 March. publish date-ka maanta la publish gareynaya. had iyo jeer time zone-ka wadamada kala duwan darteed mar kasta waxaad dooranaysaa maalin ka horeysa date-ka maanta. tusaale ahaan kale maanta waa 20 waxaan leeyahay publish gare 19 March. date-ka uu dhacayo oo ah 29 March halkaana waxaan ka dooranayaa ku dhufo calendar-ka 29 March. haddii April uu dhacayo halkaasaan ka bedelaya. halkana dib baan uga noqonayaa waxaan leeyahay 29 March. apply instructions-ka ku dhufo sida loo apply garanayo oo halkan ku qoran soo koobiyey. dabadeed halkan inoo soo dhig. halkaa markaad inoo soo dhigto dib eegto wixii aad soo qabatay eed ku qanacdo waxaad leedahay save. shaqadan save garee. markaa save weli website-kii may geeni way save gareysay uun. wuxuu ku siinayaa preview sida ay shaqadaad u ekaanayso marka job seekersku ay daalacanayaan ayuu ku tusaya. okay haddaba markaad ku qanacdo sida ay noqon doonto laba option baa ku yaala. inaad tiraa waxbaan ka bedelaya waxaan geliyay meesha iyo inaad tiraa live ka dhig oo dhan aad tiraa. mar haddii aan dhan idhaahdo shaqadaasi waxay geli doontaa marka website-kii oo waxay noqonaysaa mid live ah. wuxuu kuu sheegayaa in shaqadii la post gareeyay. si aad u eegto waxaad ku dhufanaysaa home. waxaad arki doontaa dabeeto shaqadii inay tahay live
oo website-ka ay ku jirto markaad ka baxayso haddaba user-kaagii waxaad leedahay log out